kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartayna la socotay waxaan ahay Cabdilcasiis Barrow ku soo dhawaada taxliil iyo falanqeyn kooban oo aynu ku sameyn doono burburkii diyaaradii Ukraine laga lahaa ee ku burburtay gudaha dalka Iran gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Tehran. sida la socoteenba arbacadii aynu soo dhaafnay diyaarad laga leeyahay dalka Ukraine ayaa ku burburtay gudaha caasimadda dalka Iran ee Tehran. diyaaraddaasi ayaa burburtay kadib markii ay cagaha ka qaaday garoonka diyaaradaha ee caasimadda ku yaala. dowladda Iran waxay tilmaantay markaasi inaanay garan karin sababaha rasmiga ee ka dambeeya diyaaraddu inay burburto. waxaa saarnaa muwaadiniin fara badan oo ka soo jeeda dhowr dal oo caalamka ku yaala oo ay ka mid ahaayeen muwaadiniin u dhashay waddanka Canada, laakiin dadkii ugu badnaa waxay ahaayeen dad u dhashay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Ruuxaani waxay tilmaantay inay sameynayaan baaritaano arrintaasi wixii ka dambeeyay, laakiin laguma qancin caalamka sida arrintaasiba ay shaaciyeen. sirdoonka waddanka Canada ayaa bilaabay inay si dhab ah ugu kuurgalaan waxyaabaha ka dambeeya diyaaraddaasi burburkeeda. hase yeeshee goor horeba Mareykanka oo hadlay waxa ay ku tilmaameen in Iran gantaal ay ku dhufatay diyaaraddaasi darteed ay u burburtay. hase yeeshee Iran arrintaasi waa ay beenisay. dhinaca kale xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau ee waddanka Canada ayaa waxay laamaheeda sirdoonku ay soo bandhigeen cadeymo muujinaya in ciidamada ilaalada gacaanka gaar ahaan kuwa difaaca cirka ay gantaal ku dhufteen diyaaraddaasi. waxaana laga codsaday xukuumadda Tehran inay soo bandhigto sanduuqa xogta kaydiya ee madow oo la aaminsanaa inay gacanta ku haysay. dhowr maalmood kadib maanta ayay Iran sheegtay in diyaaradda gantaal qalad ay ciidamadeeda ku dhufteen. warar warbaahintu ay soo xigatay ayaa tilmaamaya in ciidamada ilaalada gaar ahaan kuwada cirka gantaalkaasi ay si qalada diyaaradda ugu dhufteen. xaaladda diyaaradda ay ku duulaysa ayaa ahayd mid halisa. dadka arrimahaasi ka hadlana waxay tilmaameen in ay Iran markii horeba qalad ahayd inay fasaxdo diyaaraddaasi inay hawadeeda ku duusho maadaama dalka uu ku jiray xaalad dagaal, Iranna ay gantaalo tuuraysay. madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa Twitterkiisa qoraal ku soo qoray waxaana uu tilmaamay in arrimaha taagana ay noqdeen mid aan la filan karin, isla markaana ay ka bixinayso raaligelin dalkiisa waxyaabihii dhacay oo aan ula kac ahayn. haddaba arrimahaasi maxaa ka soo kordhay oo warbaahinta dunida ay qorayaan? markaan u imaano qaar ka mid ah wakaaladaha wararku waxay sheegayaan in diyaaraddaasi markii horeba ay saarnaayeen rikaab gaaraya 176 ruux. 80 ka mid ah dadkaasi waxay u dhasheen Jamhuuriyadda Iran. hase yeeshee warar caawa soo baxay ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweynaha waddanka Ukraine uu ka codsaday dowladda Iran inay bixiso raaligelin buuxda isla markaana ay waddankiisa u jeediso maadaama si dhab ay ugu xadgudbeen diyaaradooda. Iran ilaa hadda warkaasi warbixin kama aanay soo saarin, laakiin waxa ay qirteen oo kaliya in diyaaraddaasi dhibaato ay ku dhacday ciidamadooda cirkana ay sabab u ahaayeen. war ay sii daayeen taliska ciidamada Iran ayaa waxaa lagu sheegay diyaaradda inay u soo dhawaatay goob ay deganaayeen ciidamada cirka ee dalkaasi, isla markaana ay u muuqatay halis diyaaraddaasi markaasi aanay garan karin. digniino dhowr ah oo la siiyay diyaaradda ayay ciidamadu tilmaameen in ay diyaaraddu qaadan weysay, laakiin lama garan kara bay leeyihiin sababaha rasmiga ee ka dambeeyay in garoonka ay u soo dhawaato iyadoo dhinaca kalena digniino la siinayay. hase yeeshee dowladda waddanka Ukraine arrimahaasi kumaanay qancin, waxaana ay codsanayaan in la sameeyo baaritaano dheeraada. marka loo yimaado dalka Iran ayaa xilligii diyaaraddu ay duulaysay waxa uu dhowr gantaal ku riday gudaha dalka Ciraaq, gaar ahaan saldhigga ciidamada cirka ay degan yihiin ee Mareykanka ee Caynul Asad. gantaalahaasi ayaa waxay ahaayeen kuwo awood badan, laakiin markasta waxaa la filan karay Mareykanku inuu bixiyo jawaabo uu Iran siin karay. waxaana Iran ay ku andacoonaysaa in iyadoo ay ku jirto xaalad ammaan oo degdeg ah haddana diyaaraddaasi ay ku soo dhawaatay saldhiggii laga tuuray gantaalahaasi. dowladda Mareykanku waxa ay tilmaamaysaa in Iran halis ay ku tahay iminka xaaladda gobolkaasi ka jirta, waxaana ay dalbanayaan caalamku inay sameeyaan baaritaano dheeraada oo ku aadan dhibaatooyinka xukuumadda Xasan Ruuxaani ay geysanayso. sheekadan ayaad moodaa dhinaca diyaaradda la xiriirta in arrimo siyaasadeed qudhooda looga faa'iideysanayo. markaad eegto wasiirka amuraha dibadda ee dalka Iran Maxamed Jawad Zarif ayaa qoraal uu soo dhigay barti ah lagu gudbiyo fariimaha gaagaaban ee Twitterka waxa uu ku tilmaamay in dowladda Mareykanka sababo siyaasadeed darteed ay uga faa'iideysanayso dhibaatadii diyaaraddaasi ku dhacday, iyagoo ku eedeynaya buu yiri madaxweyne Trump iyo sidoo kale dowladdiisu in ay doonayaan
in Iran ay caalamka tusaan inay qatar tahay laakiin dhinaca kale waxa uu sheegay Iran inay diyaar u tahay inay qaadato mas'uuliyadda diyaaradaasi iyo dhibaatadii ka dhalatay wasiirka amuraha dibadda ee dalka Canada waxa uu isna warbaahinta kula hadlay gudaha wadankaasi waxana uu tilmaamay in loo baahan yahay Iran inay u sheegto dadka eheladooda ku dhintay diyaaradaasi sawaha rasmiga ee ka dambeeyay in dadkooda diyaaradaasi saarnaa gantaal ugu dhufto waa muhiim buu leeyahay in la ogaado xaqiiqda rasmiga ee ka dambaysa sababaha Iran ay gantaalku u durtay waxana uu codsanayaa in qoysaska dhibaatooyinka ay soo gaareen ay muhiim tahay in la qanciyo dawladdiisana ay barbar taagan tahay dadkaasi tirsanaya in dhibaatooyinka iyo godofalka loo geystay dawladda Iran iminka waxay wajahaysaa cadaadis xoog leh uga imaanaya caalamka kaasi oo la xiriira diyaaradaasi soo dhacday waxana dawlado fara badan iminka ay ku soo biirayaan liiska lagu cambaareynayo xukuumadda Tehran ee ku aadan talaabadaasi ay ku dhaqaaqeen ciidamadooda dawladaha qaliijka ayaan ilaa hadda ka hadlin diyaaradaasi lagu burburiyo gudaha wadanka Iran iyadoo dhinacyada siyaasadda isaga soo horjeeday ee caalamkuna ay arintaasi siyaabo kala duwan ay uga hadlayaan dalalka Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka ayaa la filayay in arintan ay war ka soo saaraan laakiin ilaa hadda ma jiraan warbixin ay la wadaageen warbaahinta iyo mas'uul iyaga ka tirsan oo arintaasi ka hadlay hase yeeshee waxaa sidoo kale la eegayay inay ka hadlaan Russia oo la aaminsanaa inay xulufo ama xaliif ay la tahay dhinaca Iran iyo sidoo kale Turkiga iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Carabeed ee Qatar ilaa hadda lama oga sababaha rasmiga ee ka dambeeya in arrimahan ay uga hadli waayaan hase yeeshee dawladda Iran oo hore u wajahaysa marxalada adag isla markaana laga dilay hogaamiyihii ciidamada Faylaq al-Qudus ayaa waxa haddana arrintan ay ku noqonaysaa cadaadis kale oo caalamka uga imaanaya dawladda Mareykanka ayaa arrintan u aragta cadaadiska saaran Iran inay tahay mid ay uga faa'iideysanayso isla markaana ay helayso dalal bahwada kula noqonaya arrimahaasi ilaa hadda waxa la eegayaa sida Iran ay uga jawaabi doonto hadalka ka soo baxay madaxweynaha dalka Ukraine ee ku aadan inay si rasmi ah dawladdaasi ay uga raali geliso dhibaatada loo geystay diyaaradooda iyo dadkii saarnaa hase yeeshee waxa la eegayaa sida ay uga jawaabaan arrimahaasi iyo haddii madaxweyne Rouhani arrintaasi uu ka jawaabi karo falanqayntii ku saabsaneyd diyaaradii laga lahaa Ukraine ee gantaalka lagu dhuftay gudaha dalka Iran iyo waxyaabihii ay ku qoreen warbaahinta adduunka wakaaladaha iyo wargeysyada ayaan intaa ku soo koobaynaa tan iyo kulanti dambe qiyaartayna la socota intaynu ku kulmi doonno falanqayn iyo muuqaal kale waa Cabdicasiis Barrow idila nabadgelyo